dugsiyada Nuruddin Schools. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسنا أرضي ملك استوى جوكتان كسر دواذا مركلة يحيسد إني مادة في كصوماليكا يفصل اللي حد أو أي نكو قادن تونو عشرة إني أي نهار وصور دكاني سنقتين هانا أمر في شنهان أي نو قادن تونو ما أنتنا أرضي وحي نو قادن تونا قبيجا وعوان كيسو يهي دولكا ودولكا gabaygan dhulka ayaynu arday si fiican isula sharaxan doonaa oo aynu wada sharaxi doonaa idinkuna dhageysan doontaan markaasi aynu bilowno gabayga waxaan ka bilaabaynaa qaybta ugu horeysa ee hordhaca ah akhris ku tababarasho waxaynu gelaynaa sooyaalkii iyo taariikhdii abwaanka gabaygan tiriyay abwaan dacar Ibrahim Guuleed alla naxariistiisii jannaha ugu deeqay gabaygan waxa tiriyay abwaan dacar Ibrahim Guuleed sida aynu isla wada naqaano abwaan dacar Ibrahim Guuleed waxa uu ku dhashay sanadkii 1920 ayuu dhashay waxaana uu ku dhashay miyiga ku dhashay gaar ahaan miyiga magaalada Berbera la yiraahdo miyiga magaalada Berbera ayuu abwaan dacar Ibrahim Guuleed ku dhashay 1902 magaalada Berbera oo xarun u ah gobolka Saaxil abwaanku noloshiisii caruurnimo waxa uu ku qaatay oo uu ku soo noolaa kuna barbaaray magaalooyinka ay ka mid yihiin Hargeysa iyo Berbera iyo Burco saddexda magaalo ayuu caruurnimadiisii ku soo qaatay abwaanku waa Hargeysa Burco iyo Berbera oo wuxuu weeyaan Hargeysa Berbera iyo Burco oo uu u badnaa nacamta waxa laga wadaa inta ugu badan wuxuu ku noolaan jiray magaalada Burco abwaanku waxa uu lahaa suugaan ama gabayo iyo tixo fara badan oo gabayo iyo maansooyinba leh haddii aynu soo qaadano gabaygan cabashada ah waa gabay cabasho ah cid baa cabanaysa wax kale ka cabanaysa waxa kala cabanaya dadka iyo dhulka marka halkan dhulka ayaa ku cabanaya gabaygan cabashada ah ee uu dhulku ku cabanayo ama ku dacwoonayo waxa uu kaga hadlayaa arrimo badan gabayga dhexdiisa oo ay ka mid yihiin qodobadan soo socda waxa ka mid ah dhiirigelin ayaa ka mid ah oo dadka ku boorinayo macnaheedu waa ku dhiirigelinayo in ay dhulkooda aaminaan waxa uu ku dhiirigelinayaa dadka in ay dhulkooda aaminaan qodobka labaadna waxa weeye in aanay arlada ama dhulka cidlaynin ama faaruqinin oo aanay iskaga tagin isla markaana aanay u hayaamin oo ayna tagin ayna u hayaamin meel aanay u dhalanin dhul ama arli aan koodii ahayn in aanay u hayaamin ayuu ku boorinayaa saddex waxa uu hoga tusaaleynayaa oo uu fahansiinayaa meel dhowna ka tusayaa oo uu dadka farta ugu fiiqayaa ama u tilmaamayaa
in uu dhulku yahay dhul dihin dhul dihin in uu dhulku yahay dihin waxa weeyaan dhul caynkiisii u barwaaqo ah oo aan waxba lagala soo bixin barwaaqadiisii iyo macdantiisii iyo hawlihiisii oo dhamina ay ku wada duugan yihiin amaba ay ku wada jiraan oo ay ku duugan yihiin khayraad fara badan ay ku dhex jiraan una baahan in lagala soo baxo isla markaana u baahan tacab waa in wax la gashado oo shaqo laga qabsado oo tacab la gashado wax soo saar iyo aqoon intaba wuxuu u baahan yahay dhulka tacab buu u baahan yahay wax soo saar buu u baahan yahay aqoon buu sidoo kale u baahan yahay waayahay saddexdaasi qodob ayaa ugu waaweyn waxa uu inagu dhiirigelinayo abwaanku waxa weeye in uu inagu dhiirigeliyo inaynu dhulkeenna aamino iyo in aynaan dhulka iskaga tegin oo aynaan wadamada shisheeye qaban iyo in dhulku u baahan yahay tacab iyo wax soo saar iyo aqoon iyo nimcada ku duugan in lagala soo baxo qodobadaasi ayaa ugu waaweyn waxyaabaha uu inagu dhiirigelinayo abwaanku gabaygiisa waxa uu gabaygiisa bilaabay isagoo oo aad moodo in isaga iyo dhulku ay garnaqsi iyo dood ku wada jiraan garnaqsi inay isla garamayaan isla markaana ay dood ku wada jiraan oo isla doodayaan isagoo aad moodo isaga iyo dhulku inay garnaqsi iyo dood ku wada jiraan ayuu gabaygiisa bilaabayaa waxa uu yidhi halkaa waxaa inooga bilaabmaya markaa gabaygii waxa uu yidhi meeriska koobaad wuxuu yidhi dhulkoo xalayto ooyaaya baan kacay allaylkiiye waxaan idhi maxaad aragtay waan uur xanuunsadaye wuxuu yidhi dar igu uuman baan la irkigayaaye afka naga xumaadiyo markaan dad isku eedownay idinna eega kaayaga ilhela waan akrinayaaye wuxuu yidhi dhulkoo xalayto xalay ooyaaya oo ilmaynaya baan kacay alleylkii toosay habeennimadkii wuu qofaynayaa dhulkii wuxuu ka dhigayaa sidii wax hadli karaya oo kale dhulkoo xalayto ooyaaya baan habeenkii soo toosayoo waxaan ku idhi astaanta soo warinta ayaa barta ku qoran waxaan idhi wuxuu dabeetana weydiiyey maxaad aragtay ee ku helay dhulow waan uur xanuunsaday aniguna waan kula uur xanuunsaday oo caloosh ayaan kaala dareemayaa murugadaada iyo oohintaad ooyeysa maxaad aragtay wuxuu yidhi dhulkii baa u jawaabaya dar igu uuman dar waa qaar ama cid igu uuman igu dhex abuuran baan la irkigayaaye la murugaysnahaye la calooliyowsanahaye wuxuu yidhi dar igu uuman baan la irkigayaaye afka naga xumaadiyo dadka aanu wada murannay afkii naga xumaaday yacni sidii aanu isku afdhaafnay iyo markaan dad isku eedownay halkaa waxaa ka maqan dad baa ka maqan ereyga dad afka naga xumaadiyo markaan dad isku eedownay dad baad halkaa ardayo gashanaysaa dadka markii ay afku naga xumaaday ee aanu isdhaafnay ee dadkii aanu isku eedownay idinna eega halkaana baad ku darsanaysaa idinna eega kaayaga ilhela balna eega kaayaga ilhela nacamti gar hela kaayaga gar hela waan akrinayaaye waan sheegayaa markaa doodii halkaa nagu dhex martay idinna eega kaayaga ilhela waan akrinayaaye ayuu yidhi wuu sii wadayaa wuxuu yidhi hadalkii waxaa qaatay markaa ninkii abwaanka ahaa isagoo la doodaya gabayga
dhulka isagoo la doodaya wuxuu yidhi ardi wada nimco ah buu khalqigu ku istareexaaye adiguna dhul wada oodah iyo oomanaa tahaye nin uu ubadkii gaajoonayaa aarsan kari waaye dadka kale alaabtii bedele odayadoodii anna eebadii iyo budkii bay agyaal weliye annaga iyo faraskaad ogeyd aydhna wada jiri waa hagaag ardi waa dhul al-ardu waa ereyga af carabiga ah dhulka weeyaan ardi wada nimco ah dhul barwaaqadu ay buuxdo ayuu khalqigu makhluuqaadku ku istareexaa ku rayn ka helaayo ku barwaaqaysta uu ku farxaa dhul barwaaqo ah oo qurux badan buu dadka iyo ciddii ku nooliba ay ku faraxdaaye dhul yahow adiguna dhul wada ood ah iyo oomana tahay adiguna dhul wada oodah dhul qalalan oo geedihiisii ayna midab iyo wax indhaha u roon ahayn oo qalalan oo ooda ah ooda wada yaalaan adiguna dhul wada oodah iyo adiguna dhul ay dhirtiisii wada engegtay iyo oomana tahay oomane waa dhul aan biyo lahayn oo qalalan adiguna dhul wada oodah iyo oomana tahaye maadaama oo khalqigu ku nafaxaado kuna istareexo dhulka wada nimcada ah adigu waxaa tahay mid wada oodah oo qalalan oo engegan iyo mid oomana ah haddaba nin uu ubadkii gaajoonayaa nin ay caruurtiisii gaajoonaysaa aarsan kari waa waxba iska difaaci kari waayo maadaama oo qofka ay caruurtiisu gaajoonayso wixii ay caruurtiisu cuni lahayd ayuu u halgamayaa sidii uu u soo heli lahaa quutal daruurigooda halkii uu hub samaysan lahaa oo uu qayrkiis ka celin lahaa oo uu dagaal geli lahaa markaa nin caruurtii ka gaajoonaysaa dagaal ma geli karaayo adduunyada kale dadka kale waa adduunyada dadka kale ee ku nooli alaabtii bedele alaabahoodii qadiimiga ahaa ee ay lahaan jireen adduunyada kale way iska wada bedeleen oo casri baa la gaadhay hub cusub iyo diyaarado iyo maraakiib iyo tiknoolajiyado alaabo cusub bay adduunyadii kale soo saartay odayadoodii waa dadkoodii waxgaradka ahaa ee ku noola dadka kale alaabtii bedele odayadoodii anagana anna eebadii iska daa waxaan bedelo anna eebadii waa warankii iyo budkii aan sitay bud iyo waran iyo hangool iyo gudin iyo qalabkii aan weligayba anigu lahaan jiray iskamaan bedeline anna eebadii iyo budkii bay agyaal weliye ayaan weli sidii u sitaa annaga waa aniga iyo faraskaad ogeyd anigu haddii aan safar galo itaalkaygu hadba inta uu igu sumo inaan gaadho markaan socdaal galo hadba sidaan u dheerayn karayo amaba haddii faras la raaci jiray oo faras la fuuli jiray oo faraskuna ahaan jiray gaadiidka nooca ugu dheereeya wakhtigii hore annaga oo dadkii ah iyo faraskii aad ogeyd inuu dheereeyo labadaba dhul yahow aydhna wada jiriye aydh halkaa xarafka ugu horeeya capital baan ka yara dhigaynaa aydh waxa weeyaan waa gaadhi wakti hore socon jiray xilliyadii gumaysiga iyo wakhtiyadii hore baabuur jiri jiray baa magaciisa la odhan jiray aydh marka dadkii oo annaga ah iyo faraskii aad ogeyd siduu u dheereeyo labadayadiiba aydhna wada jiriye gaadhiga aydhkaahi naga wada dheeree aydhna wada jiir naga wada dheeree oo adduunyadii casri bay gaadhay horumar bay gaadhay ilaa iyo annaguna aanu joogno heer sidayadii oo aanu nahay oo aanaan waxba taransanin sababtuna waxa weeyaan dee caruurtii baa naga gaajoonaysa oo annagoo quutal daruurigii caruurteeda halkaanu ka raadinayno wakhtigu noo saamixi maayo inaanu waxyaabo cusub ikhtiraacno oo aanu soo kordhino waa hagaag qaybta koowaad ee casharkeenna halkaas ma dhaafinayno mar kale ayaynu isla soo guud maraynaa halkii gabaygu ka bilaabay meeriskii hore wuxuu yidhi
dhulko xalayto oo yaayabaan kacaya laylkiiye waxaan idhi maxaad aragtay waan uur xanuunsadaye wuxuu yidhi dar igu uuman baan layrkigayaye afka naga xumaadiyo markaan dad isku eedownowy idinna eega kayaga ilhelaah waan akrinayaaye arday wada nimcaa buu khalqigu ku istareexaye adiguna dhulwada oodayo mana tahaye ninuu ubadkii gaajoonaya arsan kari waaye dadka kale alaabtii bedele odayadoodiiye anna eebadii iyo budkii bay agyaal weliye annaga iyo faraskaad ogeyd aydhna wada jiriye annagiyo faraskaad ogeyd aydhna wada jiriye waa tahay ardayay intaas ayaan kusoo afmeeri doonaa xiisadeennii maanta tan iyo intaynu xiisadaha soo socda haddii uu eebeydmo ku kulmi doono mar kale dhinacayga waa macalin cali maxamed sulaymaan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nooli kulantay